بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وحبرشدة هي وزير كحيك وزارة وراها وزير هذا هكذا نجوجه اللي معنا الله ما أقل يشرب صلاه ودمياها قبل كبنادر وزير كحيك وزارة أرمها الدبدة وزير كحيك وزارة أرمها الدبدة الكطليانية diblomaasiyiinta halkan la joogay dalalkan saaxiibaha nahay macallimiinta juhdiga badan gelisay ardadan soo saaridooda ardada qalin jabinaysa waalidiintooda marti sharafta kale kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaaha mahad leh oo maanta suura geliyay inaan halkan isugu imaanno munaasabadan aan qalin jabinta uga soo qayb galnay waxaan rabaa inaan mahad celiyo marti sharafta nooga timid dalal kale professorkii halkan ka akhrinayay khudbadda qiimaha badneyd South Africa nooga yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Talyaaniga iyo guud ahaan martida kale nooga timid meelo fog ardadii hore jaamacadda oo hadda dhalinyarada duqoodey ah ama dhalinyarada cuslaatay ah aan iraahdo oo iyaga naftigooda juhdi geliyay inay nagala soo qayb galaan oo ay arkaan dufcadii 20aad ee ka qalin jabisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sidii loo dhisay aasaaskii jaamacadda ahna dufcadii koowaad ee qalin jabisay sidii uu burburka noogu dhacay xaqiiqatan waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha jaamacadda rektorka jaamacadda hormuudyada jaamacadda macallimiintooda ardada u dhabar adeegay macallimiinta qaatay iyagoo mushahar qaadanayeen inay dib u bixiyaan deeyinkii shalay la geliyey aad iyo aad yaan uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dowladaha nagu taageeray garab nagu siiyey waxay rabtaa ha ahaato markay ugu yartahay na soo xasuusay hawad ka yaraadaan ee nagu tabarucay iyaga naftooda u mahad celinaya iyo kuwa doonaya inay gacan naga siiyaan dhismaha jaamacadda ummadda waxaan ogahay ardadu inay geliyeen juhdi badan waqti badan dadaal badan inay geliyeen maantana ay mirihii ay guranayaan maanta oo ay qaadanayaan shahaadada u qalanta sida la sheegay ee tayada leh waxaan rabaa dardaaran inaan siiyo dhalinyarada ha ugu horeyso deyntii la geliyey bacdamaa aysan lacag ku dhigan jaamacadda inay dib ummadda Soomaaliyeed iyo society-ga ay dib ugu celiyaan ay ugu adeegaan dib u dhiska dalkooda iyo mujtamacooda dardaaranka labaad oo aan rabo inaan siiyo waxay tahay ardada maanta qalin jabisay waxay wajihi doonaan xaalado kala duwan waxay geli doonaan halgan nololeed waa garan karnaa 4 sano soo dhigteen 5 sano ka hor 6 sano ka hor go'aan ayay qaateen inay wax bartaan oo jaamacad aadaan oo maado ku takhasusaan waa u dhabar adeegeen way focus gareeyeen waxay lahaayeen hadafkoodii wuxuu noqday xaalad kasta oo lagu jiro 130kaas inay maanta noqdaan dufcaddii ugu horreysay oo qalin jabisay sidii dalka uu burburka ugu dhacay halgankoodu hadduu bilowday halgankii nolosha page ama bog cusub yaa u furmay waxaa la rabaa marka anigu waxaan rabaa inaan siiyo talooyinkaas waxay tahay qof walba oo dhameeyey jaamacadda waxaa laga rabaa inuu qorshe leeyahay waxaa laga rabaa inuu hadaf iyo gool leeyahay waxaa laga rabaa goolkaas uu leeyahay oo ahaa kii jaamacadda aad ku dhammayseen xaalado iyo duruufo adag dartood aad ku jirteen kani waa ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay waa mid mustaqbal ah waxaa la rabaa inaad qorataan qorshe 5 sano ah ama 10 sano ah oo aad leedahay 5 sano kadib
xaggee adduunka ka joogaan xaggee nolosha ka taagina horumar intee la eg ayaan samayn doonaa waa inay ku muuqato oo vision aad leedahay goolna aad leedahay oo aadan marnaba dhinac uga leexan oo sida aad u bilowdo qorshahaaga inuu kugu dhammaado waa xaqiiqa 10 sano ka bacdi qorshaha dhiganayso lamid ma tihid dalalka jiilkii ka horreeyey u shaqeeyeen nasiib darro waxaan leeyahay jiilkii idinka horreeyey idinma shaqaynin wax meel idin yaalla oo raggii hore ay u soo tiira tacabeeleen ay u soo halgameen inaad dhaxalkeeda qaataan wax badan ma aha oo ma odhan karo isku opportunity ama isku fursad ayaa tihiin dadyooga ama quruumaha ama dalalkaas aanan waxba ka burburin 30 sano oo maalin walba wax ku daraayay oo dad wax baraayay oo wax dhisaayay society-goodana dejinayay oo siyaasado xasilan oo nabad ah oo mustaqbal horumar cad leh caruurtooda idinkoo kale ah u jeexay macnaheedu waxay tahay waxa aad qabanaysaan waxaa loo baahan yahay inaad laba jibaartaan shaqadiinni inaad laba jibaartaan laakiin anigu waxaa ii muuqda xaqiiqatan waxaa ii muuqda rajo wanaagsan waxaa ii muuqda Soomaaliya inay noqon doonto waddan horumarkeedu ka horeeyo waddamo badan waxaa ii muuqda waddan dhaqaalihiisu uu la tartami doono waddamadii aanan burburin waxaa ii muuqda waddan ka faa'iidaysan doona khayraadkiisa dabiiciga ah hadday tahay beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo macdanta kale oo adduunka kale aan u suuq geyn doonno waxaa ii muuqda inaan leenahay ama lahaan doonno dowlad xasiloon oo stable ah oo dimuqraadiyad ah oo barmoodgaraysa ama horumarisa xuquuqda qof kasta oo muwaadin uu leeyahay waxaa ii muuqda in maalgashi shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeedba ay imaan doonaan oo ay maalgashan doonaan Soomaaliya si ay u abuuraan shaqooyin dhalinyarada idinkoo kale ah ay ugu abuuraan shaqooyin waxaa ii muuqda Soomaaliya inay noqonayso waddan sharaf leh oo sumcad adduunka ku leh oo caruurtooda mustaqbalkooda iyo horumarkooda ka shaqaysa yaa ii muuqda sababtaan u leeyahayna waa idin sharxaya waa idin sheegaya Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan ma aha inaan ilowno wixii la soo dhaafay iyo meeshaan taagannahay si aan u ogaano meeshaan u soconno waxaan soo marnay marxalado iyo xaalado kala duwan waxa ugu horeysay oo taariikhda ay qortaa marxaladii dhalinyarada idinkoo kale ah oo aan jaamacado haysan ay u saageen inay dalkooda xorriyadiisa ay xaqiijiyaan inay gumaysiga yiraahdaan annaga ismaamulayna oo isku filan ummaddeena ku filan inay ummadda mideeyaan oo qabyaaladda ay ka ilaaliyaan oo ay kala diriraan waxay dhashay dowladnimo ayay dhashay marxaladda ku xigta dowladnimadaas markii la helay waa la hormariyey waa laga shaqeeyey functioning system yaan yeelanay oo la tartama caalamka intiisa kale hay-adihii dowladda kulli waa dhisnay hadday tahay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah waxaan ka galnay adduunka ama Afrika meelaha laga tilmaamo marxaladaasi iyadana waa ka soo gudubnay oo Soomaaliya u keenay sharaf iyo sumcad wanaagsan u keenay marxaladii ku xigtay waxay ahayd marxalad maxaan ku raahdaa nasiib darro nagu dhacday oo burbur iyo qabyaalad tii hore waxay ahayd labadii hore waxaan ka shaqaynaynay qarannimo iyo qab Soomaali markii ay wax naga burbureenna waxaan aadnay kala qaybsanaan iyo qabyaalad iyo burbur waa marxaladii saddexaad aan marnay marxaladii afaraad waa dib u soo kabashada recovery oo aan dowlad dhisano haba naga dunto haddana aan kacno ha dunto haddana aan kacno ilaa hadda oo marxaladii afraad aan galayno oo aad nasiib u leedihiin oo meesha aan leeyahay rajaa jirta oo ah marxaladda soo socota waa marxalad horumarinta dalka aan ka shaqaynayno bacdama aan khibrad u leenahay xaaladuna ay noo degan tahay marxalad horumar marka laga shaqaynayana waxaa loo baahan yahay dowlad degan yaa loo baahan yahay
dowlad ka shaqaysa oo degan ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay haddii dowladdu aysan deganayn dalku uusan deganayn arday walba oo soo baxa fursadahooda waa yar yihiin maxaa yeelay dowladda laga rabaa inay keento siyaasad dhaqaale oo lagu maalgashado siyaasad shaqo abuurid inay keento yaa laga rabaa waxaa laga rabaa siyaasad kasta oo adduunka Soomaaliya u tusayso Soomaaliya inay tahay meel wanaagsan oo cid walba ay maalgashan karto inay abuurto macnaheedu waxay tahay dowladdaasi waa haysataan hadda ma isfaaninayno isma faaninayno dowlad wanaag iyo honest government wax la yiraahdo dowladda daacada weeye waxa hadda jirta oo aan idinku diyaarinayno qof walba oo Soomaaliya aan u diyaarinayno mustaqbalka dowladdan iyo shacabkooda inay isla jaan qaadaan marka aan isla jaan qaadno marka meeshaas way meeshaan ka arkaayo 10 sano 5 sano kadib Soomaaliya inay noqon karto wadamada ugu wanaagsan ee Afrika ugu wanaagsan waxaa intaas dheer dowlad wanaag kaligeed iyo honest government iyo dowladda caada kaligeed waxba tartee waxaa aasaas u ah wada shaqayn dowladdan waxay ku sifowday inay noqoto dowlad wada shaqaysa gudaheeda oo aan khilaafaad lahayn sidii lagu yaqaanay dowladihii naga horreeyay maxaa yeelay waxbaan ka baranay oo waqtiga nooga lumay shacabka Soomaaliyeedna waqtiga uga lumiyeen markii la isqabto waxba lama qabto waqtiga luma horumarna iska dhaaf warkiisa laguma jirada sababtu waxa weeye oo aan ka wada maxaa yeelay dowladdaani waa dowlad runtii ka horumarinaysa maslaxadda shacabka wax walba ka horumarinaysa iyo dadka ka horumarinaysa taasaa waxay keentay marka inaan wada shaqeyno marka oo waxyaabaha yararka la soo qabsan jirin oo shakhsiga ahaa in laga gudbo waxaan kale oo aan ku guulaysanay oo runtii ay tahay wax aan dhaxal uga tagayno ama legacy uga tagayno waxay tahay wada shaqayn xukuumadda iyo baarlamaanka macnaheedu ma dhahayo wax walba waa perfect ma dhahayo adduunku oo maxaan ku rahdaa awoodda kala qaybsan adduunka ka jirta xukuumad iyo baarlamaan muran iyo debate waa ka jiraan laakiin waa inaysan shaqada istaagin taasna runtii waa ku guulaysanay wada shaqaynta dowladda dhexdeeda wada shaqaynta beesha caalamka sidaasoo kale waa kuwaas oo iyaguba na ammaanayaan oo leeyihiin dowladdaani waa dowlad wanaagsan oo lala macaamili karo oo mustaqbalka iyo maslaxadda shacabkeeda u adeegaysa xiriirkeennana waa fiican yahay xiriirka gobolka geeska Afrika sidaasoo kale isaguna waa fiican yahay waa jiraan meelo culays iskaga jiraan meelo culays ka jiraan waa jiraan iyadana waa ka gudbinahay insha Allah haddaan anagu isku duubanahay waa ka gudbinahay insha Allah maamul goboleedyada iyaga nafsigoodu qof walba si ha u arko waa qayb ka mid ah debate-ka socda oo dowladnimadeena ay ku dhismayso oo aan ku fasirayno muxuu yahay federal iyo muxuu yahay confederate annagu waxaan aaminsannahay inkastoo qaarkood ay nagu dacaayadeeyaan ay yidhaahdaan dowladda dhexe waa dowlad centrista ah waa dowlad awoodda rabta inay qaadato annagu waxaan rahnaa federaalka saxa annagaa ah maxaa yeele waxaan rabnaa dowlad dhexe oo xoog lahan rabnaa waxaan rabnaa dowlad dhexe oo ciidan fiican leh oo dalka difaaci karta waxaan rabnaa dowlad dhexe oo arrimo dibadeed oo adag leh waxaan rabnaa dowlad dhexe oo immigration iyo xuduudadeeda ilaalisa waxaan rabnaa dowlad ciidan adag leh dhaqaalaheedana iyadu kontroolsho karansigeeda iyadu kontroolsho dowladda dhexe aan rabno waa noocaas anigana waxaan u arkaa inaan nahay pro federal system inaan nahay wixii ka soo horjeeda taas waa anti federalism way waxaa jira wax la wada leeyahay oo aan ogolnahay in la wada lahaado iyo wax dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo khasab tahay inay qabato oo ah adeegii laakiin dowlad dhexe inuusan muran ka gelin qof walba oo Soomaali ah khaasatan dhalinyarada dowlad dhexe oo xoog leh inay jirto oo dadka difaacda
wixii ka soo haro waxaa leedahay confederate aliyaha confederate annagana confederate ma doonayno ama loose federalism ma doonayno macnaheedu waxay tahay wada shaqayn fiican naga dhexaysa laakiin debate yaan ku jirnaa idinkana waxaa la rabaa debatekaas inaad qayb ka noqotaan oo aad nasaxdaan annagu haddaan khaldannahay xitaa nasaxdaan iyagana aad saxdaan haddii khaldan yihiin maxaa yeele mustaqbalka soomaaliya xukuumad ma laha shaksina ma laha annagoo dhan ayaa wada leh waa mustaqbalkiina wey waa futurkiina wey marka inaan ka wada shaqeyno arrintaas walaalayaal mustaqbalka anigu waa ii cadyahay waa ii muuqdaa si kaleer ah yuu igu muuqdaa mustaqbalka soomaaliya waa fiican yahay waa haddii dowlad kasta oo timaada dhallinyaradu iyo shacabku ay la shaqeeyaan haddii shacabka iyo dhallinyaradu aysan la shaqeyn dowladdaas way fashilmi waa in la wada shaqeeyo waa in dowladda hadda jirta iyo dowlad kastaba gacan la siiyo oo garab la siiyo oo runtii ka shaqaynaysa maslaxadda guud ee dalkan xaqiiqatan waxaan aaminsanahay waana si fiican tihiin waana si fiican tihiin 130 ugu horreeyey keliya ma aha jaamacadaha kale oo dalka ku yaal naftigoodu waa inaan barmood garayno waa inaan dhiirigelinno waa inaan ku adkeenno quality inay keenaan waxbarasho tayale inay keenaan oo la tartamo keliya iyo dhexdooda ma aha inay la tartamaan jaamacadaha kale ee caalamka ka jira inay la tartamaan markaas waxaa noo soo baxaya dad mutacalimiina yaa noo soo baxaya oo dalkan mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa hanan kara oo lagu haleyn karo walaalayaal waxaan leeyahay hambalyo dhalinyaro hambalyo waalidiinta runtii geesinimada leh oo inta aan sheegnay aanan fiirin oo runtii gacan idin siiyey intay idin siin karaan systemkana jaamacaddana gacan siiyey waalidiinta aad iyo aad yaan uga mahad celinaya geesinimadooda iyo macallimiinta in sha allah waxaan idin rajeynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan idin rajeynayaa horumar waxaan idin rajeynayaa inaad dalkiina u shaqaysaan ummaddiina u shaqaysaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu